xisbiga mucaaradka UCID ayaa maanta shaaciyay jadwalka ololaha doorashada oo berri ka furmaya dalka oo dhan. xisbiga UCID oo leh maalinta koobaad ee ololaha doorashada golayaasha wakiilada iyo deegaanada ee Soomaaliland ayaa mas'uuliyiintiisu shir saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxa ay ku faahfaahiyeen qaabka ay xisbi ahaan ololaha u galayaan. mas'uuliyiintan oo kale ah gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xisbiga UCID iyo xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi Yuusuf Kayse Cabdilaahi ayaa si gaar u faahfaahiyay qaabka uu ololaha u galayo xisbiga UCID iyagoo laba qaybood u kala qaaday habka uu xisbi ahaan u ololeynayo maalmaha uu komishanku u qorsheeyay inay ololaha galaan. ololaha doorashada Soomaaliland ayaa ku kooban muddo 6 maalmood ah waxaanu xisbi walba leeyahay 2 maalmood oo kaliya. Cabdulqaadir Carab Tirfeeshinka Gobonimo Hargeysa. Hoggaanka xisbiga iyo cadaaladda saaka kolkii shirkii ay gaadheen waxay go'aamiyeen sidan soo socota gobolka Togdheer iyo gobolka Saaxil iyo gobolka Gabiiley iyo gobolka Caynabo. haddana waan ku celinayaa gobolka Togdheer, gobolka Saaxil, Gabiiley iyo Caynabo berito oo axada ayaa dadweynuhu isugu soo baxaya khayriyaadka ama fagaaraha khayriyada ee gobol kastaba. hadda mar saddexaad baan ku celinayaa Togdheer, Saaxil, Gabiiley iyo Caynabo waa inay taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo taageerayaasha musharaxiintu ay ku diyaar garoobaan berito 7 subaxnimo khayriyada Caynaba, khayriyada Togdheer, khayriyada Saaxil iyo khayriyada Gabiiley. berito waa ka lahaad waa maalintii ugu horeysay ee ololaha doorashada. waa yahay qaybta labaad ee aanu u jabinay gobolada soo socda Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Maroodi Jeex oo Hargeysa. Sool, Sanaag, Awdal iyo Maroodi Jeex musharaxiintu waxay fursad u helayaan inay ka ololeeyaan xafiisyadooda. waayo musharax kastaaba intaas oo xafiis buu furtay wuxuu u baahan yahay inuu dadweynaha gaadho waa xafiisyada ay ka ololeynayaan. maalintaas waxa weeye waa maalinta berita ah waxaan aan idin sheegay waxa weeye 23 bisha berito oo axada 3 gobol khayriyada isugu imanayaan 3 gobolna waxay ka ololeynayaan xafiisyada. waa yahay maalinta arbacada ay bishu tahay 26 Sool iyo Sanaag iyo Awdal iyo Hargeysa eeg waan ku celinayaa Sool, Sanaag, Awdal iyo Hargeysa waxay isugu soo baxayaan khayriyada. taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo taageerayaasha musharaxiinta xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyagana waxaan ku baraarujinayaa reer Hargeyso waa inoo arbacada, reer Awdalow waa inoo arbacada, reer Soolow waa inoo arbacada oo bishu tahay 26 ayaa iyadana khayriyada magaalooyinkaas. khayriyada ugu weyn waa Hargeysa ayaa maxay tahay la isugu imanaya oo taageerayaasha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka iyo musharaxiinta taageerayaashoodaba iyo wayna ku soo diyaar garoobaan iyo muraaqibiintuba wayna ku soo diyaar garoobaan Hargeysa khayriyada iyo Awdal khayriyadeeda iyo Sanaag khayriyadeeda iyo Sool khayriyadeeda. wixii faahfaahina ee dadweynaha ama taageerayaasha ay u baahan yihiin ee ay doonayaan in loo faahfaahiyo waxay naga soo garaaci karaan hotline ama telefoon kulul ayaanu u diyaar garaynay. telefoonkaasi waxa weeye 063 42 3415. qofkii su'aal ka qaba ama aan fahmin telefoonkaas naga soo garaacaya. waxaad moodaa doorashadani inay taageerayaashu ay ka doondoonayaan taageero reeraha. waxa jira musharaxiin isku dhajiyay laba
maxay haytay musharax oo kala xisbiya taas waxaan leenahay waa mamnuuc